بسم الله الحمد لله. وركي جدا بيه كول كسول وحوي صول وحوي وحتى ماشى الدجال كنت بدن دلوقتي كتجنب واحد تكرر وكسو تركيا من كان صومالي الليل يرادو هورينا أي إن بدن قدرت بدن وجيستين كول كسول صول قلنا مرة هذا لكن حالته وتجنتهاي لكن هدي كبدحن كول كسول أردن بدي جنان دونتو waan iska celin doonaa gardarada ay ku soo galeen xuduudda gobolka Sool horena ay u soo gardareysteen haddana doonayaan wali sidaa way maxaa ka jira in warar ka sheegaya ciidamo aad geyseen aaga Tukaraq oo ay dagaal ku qabseen Soomaaliland ciidamada waxa weeye waa joogeen kuwa kalena waa la geynayaa waana difaaca Puntland ciidamadooda diyaar bay u yihiin inay difaacaan xuduudda Puntland intay ku agtahay oo dhan ciidankan ma waxa ka soo saarteen dhinaca iyo bari gaar ahaan aaga galgara la yiraahdo hadda aad geyseen Tukaraq lagama soo saaray ciidamadaasi meeshoodii bay ku jiraan waana albaari loogu talagalay way joogaan Puntland ciidamo ku filan way leedahay ma aha aaga inta ka soo saartaa kala geen mayso aag waliba ciidamo u gaara oo khaas ah oo ku filan ayaa jooga haddana qolkana kuwa kala la geeyay kuwii horena meelahoodii kale ay way joogaan difaaca kaga jireen difaacayeen Puntland waxaa la yiri ciidan gaar ah oo tababar gaar leh bay leedahay waxay ahaayeen kuwii shabaab suuj iyo galgala iyo garaacad kula dagaalamay bay ahaayeen waayadan dhan halkaas bay deganayeen hadda ciidan kale lagu bedelay aagaaso kuwana waxaa la geeyay lagu yiri Tukaraq ma dhaba ciidamada sideedaba waa wada tababaran yihiin wala farbadan ciidamada inta badan kamaan dowsta Puntland ay leedahay kuwaas lama soo rarin meeshoodii bayna joogaan difaacyadooda bayna ku jiraan laakiin kuwa halkan la geeyay waa kuwa kale hadii wax laga soo qaadayna wax saaw badan maaha in ku filanna meel walba waa joogtaa hal aan dagaal lahayn ma ku raaysan Tukaraq sidii laga yeeli lahaa dagaalka sideedaba waxa weeye waxa bilaabaya oo wada waa Soomaaliland nimankaas hadda ku soo duulay dalka aan Soomaalinimada ogolayn diidana inay magaca Soomaaliyeed la soo celiyo hortaagan mar walba shaqaaqada wada mana ogola in nabad sideedaba ay ka dhalato gobolka Sool iyo Puntland toona waan gartay waana iska celinaynaa waxa weeye dalka Puntland dadkeeda shacabkeeda ciidamadeeda madaxdeeda kulli waxay diyaar u yihiin inay difaacaan difaaca marka laga soo tago cid kale oo dawladda dhexe ah ama beesha caalamka ee Soomaaliya deganaashada danaysa ah oo ku jirta dadaal xal raadina ma jirta xal kasta oo laga raadiyo nimankana xal ma ogola horeba loogu sheegay oo la yiraahdo ku xadgudbina xuduudaha Puntland xalna sideeda ma ogola nimankana waa horeba ugu soo xadgudbeen markay doorashada ay sameynayeen oo ku soo xadgudbeen haddana waa ku soo xadgudbeen ilaa weli xadgudubkeeda wadan horena waa ugu soo xadgudbeen way laakiin gudoomiye cid hadda idin la soo xiriirta ma jirta oo xal raadis ah oo beesha caalamka ah annaga dana la soo xiriir mayso hadii la xiriirayso waxa la rabaa in la xiriirto nimanka soo xadgudbay ee doonaya dalka ay lahayn waan gartay maxaa ku muuqda inta badan nabad waxay ku timaadaa marka aan lagu maagin bay ku timaadaa nimankan waxa weeye hadii ay dalkayaga nooga baxaan oo ay noo firaaqeeyaan oo xuduudkayaga ka baxaan nabad waa naga helayaan anagu dalkooda uma socono Hargeysa iyo Burco iyo Berbera midna uma socono laakiin inta aan leenahay waa naqaanaa waa inay nooga baxaan markaas ka bacdi nabad waa la helaya laakiin inta ay ku soo xadgudbayaan ee doonayaan dal aan lahayn nabad u imaan mayso helina maya way ugu dambeyn dadkii ku noolaa Tukaraq iyo nawaaxigeeda oo ay xiisadu ka taagan tahay miyay joogaan wali mise way barakaceen dadkaas ku noolaa tuulooyinka inta badan ay soo galeen oo dhan way barakaceen macareer baadiyihii iyo dadkii kale tuulooyinka deganaa kulli way ka barakaceen wayna barakiciyeen iyagana barakiciyay waxa laala wixii nawaaxiga ay soo galeen deganaa oo dhan